sanadkii 1924 markii ay burburtay dowladda Cusmaaniyiintu waxaa dunida islaamka intay gacanta ugu jirtay khulafada islaamka la wareegay gumaystii reer Yurub. maamulka dhulka laga hogaaminayo khulafadaasi ee Turkiguna wuxuu gacanta u galay kooxaha askar cilmaaniyiin waxaana la bedelay oo la joojiyay wax kasta oo muujinaya islaamnimo iyo qaybo badan oo kamid ah maqaasida islaamka ayaa la bedelay sida in aadamka iyo salaada laga bedelay luqadda Carabiga loona bedelay luqadda Turkiga. sidoo kale waxaa la mamnuucay xirashada xijaabka iyo madaarista quraanka lagu barto. sanadkii 1950 waxaa siyaasadda soo galay nin musharax ah oo roolihiisa ku asteeyay inuu soo celin doono astaamihii lagu yaqaanay islaamka ee muddada dheer mamnuuca ka ahaa Turkiga. shacabka Turkiga oo aamana maqlida aadamka iyo astaamaha kale islaamnimada oo muddo rubuc qarni ah mamnuuc ka ahaa Turkiga ayaa si lixaad u soo dhaweeyay musharaxa cusub. wax badan oo isbedel kadib ciidamada oo garabka helaya Cilmaaniyiinta ayaa afgambiyay xukunkii xiisaha badan loo qabay kadibna daldalay ra'iisul wasaarihii Turkiga. qofka aynu ka hadlayno waa Adnan Menderes oo ku caabaxay magaca shahiidkii aadamka. Adnan Menderes wuxuu sanadkii 1899 ku dhashay magaalada Kasaarle ee gobolka Aydin ee ka furta dalka Turkiga. wuxuu ka dhashay qoys muslim ah oo asal ahaan ka soo jeedo dadka loo yaqaan Tatarka Khireen oo markiiba ku biiray qowmiyadda Turkida. wuxuu shahaadada sharciga ka qaatay jaamacadda Ankara sanadkii 1930 ayuuna siyaasadda ku biiray. asaga iyo koox saaxiibadiisa ayaa samaystay xisbi yar oo markii dambe burburay. kadibna waxay ku biireen sanadkii 1931 xisbiga RBB oo uu hogaamiye ka ahaa Kemal Atatürk oo uu ka noqday ku-xigeenka xisbiga ku metela gobolka uu ka soo jeeday Aydin. balse 15 sano kadib xisbiga ayaa laga saaray isaga iyo saaxiibadiis marka ay ka hor yimaadeen xeer hoosaadiyada yaalla xisbiga. sanadkii 1945 Adnan Menderes iyo saaxiibadiis waxa ay furteen xisbi iyaga u gaar ah. doorashadii ugu horeysay oo si xor ah looga qabtay taariikhda dalka Turkiga sanadkii 1946 waxaa ku guuleystay xisbiga DP oo uu ku-xigeen ka ahaa Adnan Menderes. xisbiga DP ayaa ololaha doorashada ku soo galay fariimo muhiim ah oo ay shacabku xilligaas ka filan jireen madaxda siyaasadda. waxa uu ballan qaaday inuu soo celin doono maqaasidii diinta oo mamnuuc ka ahaa ku dhawaad 25 sano sida aadaamka iyo salaada oo Carabi lagu soo celinayo iyo sidoo kale inuu joojinayo mamnuucida la saaray xijaabka iyo barashada quraanka. shacabka Turkiga ayaa si lixaad u soo dhaweeyay Adnan Menderes iyo xisbigiisa cusub oo halku dhigiisu ahaa codkeena nasiya aan idin soo celin karaamadiina. si lixaad ayay xisbiga DP ku guuleysatay. Adnan Menderes ayaana noqday ra'iisul wasaarihii Turkiga. markii loo dhaariyay xilka hawshii ugu horeeyay oo uu qabto waxa uu ka dhigay inuu baabi'iyo mamnuucida la saaray aadamka waxaana si rasmi ah aadamka loogu soo celiyay luqadda Carabiga. kowda bishii Ramadaan sanadkii 1950 khudbadiisii ugu horeeyay uu jeediyo waxaa taariikhda galay eraygii ahaa Turkigu waa dal muslim ah wuuna ahaan doonaa qofna nagama qaadi karto xorriyadeena diimeed. markaas wixii ka dambeeyay aadamka iyo barashada quraanka waxaa laga qaaday xayiraadii saarnayd. shacabka Turkigana farxad ayay ku soo dhaweeyeen go'aanka ka kor qaaday duligan lagu burburinayo astaamahooda diimeed ee sharafta leh. Adnan Menderes 10 sano ayuu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga. waxa uu dalkiisa u horseeday dhacdooyin badan oo taariikhda galay. sanadkii 1952 waxa uu saxiixay heshiiskii uu ka qayb noqonayay xulafada NATO. waxa uu soo celiyay xiriirkii dalka Turkiga uu la lahaa dunida islaamka inteeda kale oo muddo mugdi ku jiray. waxaana sidoo kale xilligiisii kor u kacay dhaqaalaha dalka Turkiga isagoo aad u ballaariyay nidaamka magaaleynta iyo casriyeynta dhulka ka fog magaalooyinka. waxa uu sidoo kale kor u qaaday dhisidda iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha sida beeraha iyo isku socodka iyo koronto siinta magaalooyinka. sanadkii 1955 waxaa kooxo xag jirin oo Gariga ay qaraxyo ku weerareen qonsuliyadda Turkiga ee magaalada Salonika ee Gariga. dhacdadan ayaa dib u kicisay labada dal iyo shacabkooda. shacabka Turkiga oo aad uga carooday arrintan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen qoysas tiro yar oo Gariga oo ku nool magaalada Istanbul. fawdada ayaa gaartay ilaa gudaha jasiiradda Qubrus
halkaas oo shacabku isku laynayeen qoomiyado. Turkiga iyo Giriiga ayaa arrintan aad u saamaysay, waxaana soo kala dhex galay dalaal ugu horreeyay Ingiriisku, balse is-afgarad waayay ku soo dhammaatay isku daygaasi. Ingiriiska ayaa mar kale shir heshiisiin isugu yeeray labada dal. Ra'iisul Wasaare Adnan Menderes ayaa markaan hogaaminayay wafdiga Turkiga. Ra'iisul Wasaare Adnan Menderes ayaa markaan hogaaminayay wafdiga Turkiga, balse dhacda argagax leh ayaa qabsatay wafdigii. Bishii labaad sanadkii 1959 waxaa hawada ku burburtay diyaaraddii wafdigaas u siday magaalada London, waxaana ku dhintay 17 qof oo ka mid ah 21 qof oo saarnayd diyaaraddaasi, waxaana ka badbaaday 4 qof oo ka mid ahaa Ra'iisul Wasaare Adnan Menderes. 2 maalin kadib waxa uu qalinka ugu duugay heshiis lagu dhexdhexaadinayo labada dal ee Turkiga iyo Giriiga si loo joojiyo xasaradaha labada dal iyo shacabkooda ku dhex maraya jasiiradda Qubrus. Markii uu Turkiga dib ugu soo laabtay, waxaa mucaarad xooggan ku qaabilay kooxaha Calmaaniyiinta oo aad ugu xoogganaa siyaasadda iyo ciidamada Turkiga. Waxa ay faafiyeen dacayad ah in uu dalkiisa heshiis lagu dhabar jabinayo soo saxiixay. Arrintan ayaa sababtay in fawdo iyo dhaqdhaqaaqyo horseed u yihiin kooxaha Calmaaniyiinta ay ka bilowdo gudaha dalka Turkiga. Dowladda ayaa isku dayday inay markii hore xakamayso, waxa ayna xirtay horjoogayaal badan oo banaanbaxa ka abaabulayay jaamacadaha dowladdu ay maamusho. Dagaalkii lagula jiray xukuumaddii Ra'iisul Wasaare Adnan Menderes iyo saaxiibkiis madaxweyne Maxamuud Jalaal Bayaar ayaa noqday mid faraha ka baxay oo la xakameyn waayay. Ugu dambeyntii, kooxaha askar dhalinyaro ah ayaa bishii May sanadkii 1960 xilka ka tuurtay dowladdii uu hogaaminayay Adnan Menderes, waxaana talada dalka dib loogu celiyay xukunkii milatariga. Kooxdii askarta ahayd ee talada la wareegtay ayaa jeelka dhigtay Ra'iisul Wasaare Adnan Menderes iyo saaxiibkiis madaxweyne Maxamuud Jalaal Bayaar iyo madaxdii kale ee xisbiga talada hayay. Sanad kadib waxaa la soo taagay maxkamad milatari. Ra'iisul Wasaare Adnan Menderes ayay ku soo eedeeyeen khiyaano qaran ah, waxa ayna ku rideen xukun daldalaad ah. Sidoo kale madaxweyne Maxamuud Jalaal Bayaar ayay ku rideen xabsi daa'im 17 bishii Sebtembar sanadkii 1961. iyo Ra'iisul Wasaare Adnan Menderes iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda lagu xukumay xukun daldalaad ah. Waxaana taariikhda dalka Turkiga ku aastaysan maalintii sida dulliga ah loo dilay Ra'iisul Wasaarihii ugu horreeyay ee shacabku doortaan ee dalka Turkiga, waxaana lagu daldalay jasiirad ku taalla meel cidlo ah. Sumcadda shacabka Turkiga ay u hayaan Adnan Menderes ayaa ilaa maanta ah mid aad u sarreysa. Taariikhda dalka Turkigana waxa uu ka galay baaldahaba. Dowladda Turkiga ayaa sanadkii 1990 dhistay madxaf qaran oo lagu maamuusayo Ra'iisul Wasaare Adnan Menderes. Sidoo kale waxaa loogu magac daray jaamacad iyo garoon diyaaradeed. Maalintii sida xaqdarrada ah loo daldalayna waxaa laga dhigay maalin murugo qaran ah. Ra'iisul Wasaare Adnan Menderes maalintii uu xukunka dalka Turkiga qabtay, waxaa mamnuuc ahaa dhisidda astaanta diinta. Waxaa mamnuuc ahaa wax kasta oo astaan u ah diinta Islaamka waqtigii. Wax kasta oo astaan u ah diinta Islaamka waqtigii uu baabi'iyay xukunkaasi mamnuucidda ah. Ilaa maanta waxaa la sheegaa in dalka Turkiga laga dhisay wax ka badan 80,000 oo masaajid. Shacabka Turkigana waxa uu ka dhigay mid xor u ah barashada iyo ku dhaqanka diintooda. Waxa uu ahaa geesi ku dhiiraday badbaadinta dadkiisa, isaga oo qaaday tilaabo ay ku dhiiran waayeen hogaamiyaashii ka horreeyay. Sidoo kale waxa uu raad u noqday
hogaamiyaal badan oo ka dambeeyey sida Najmuddin Arbakan iyo Rajab Tayyip Erdogan. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeena maanta. haddii ku qanciyo muuqaalkaanu ha ilaawin inaad la wadaagto asxaabtaada, like-na saarta si uu u faafo. haddii aad nagu cusub tahay, follow garay page-ka si aad uga mid noqoto bahweynta ku xiran barteennan. wassalaamu calaykum.